weligaa wax ma iska weydiisay acmaasha gaarka ee la sameeyo bisha Ramadaan? Nabigeena Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee, acmaal gaar ah baa jirta uu bisha Ramadaan inoo soo tilmaamay, waana kuwa ugu culus ee tababar aynu ku qaadan karno marka laga tago midda ugu horeysa oo ah in la soomo. waxaana halkan idinkugu soo gudbin doonaa acmaasha kale aad samayn kartid. 1. waa bishii malakul jibriil quraanka la daraasayn jiray, sidaa daraadeed waa bisha la doonayay inaad si gaar ah diiradda u saartid quraanka akhrintiisa, fahamkiisa adigoon bilaha kale iloobayn. 2. acmaasha kale waxaa ka mid ah inaad badisid qiyaamul leylka oo ah inaad tukatid salaadaha sida taraawiixda iyo kuwa kale oo aad salaada badisid. 3. sadaqada ayaa ah sidoo kale acmaasha aad loogu dadaalo bishan. ku dadaal waxbixinta sida fuqarada, qaraabada iyo wixii la mid ah. 4. i'tikaaf, in qofku masjidka isku xiro oo uu cibaadada u go'o sida 10ka dambe ee Ramadaanka. muhiimadda i'tikaafku ma aha inaad masaajidka hurdo u doonato, taas beddelkeeda waa cibaadada oo diiradda saarto. acmaasha aad samayn kartid bisha barakaysan ee Ramadaanka kuma eka oo kaliya. haddii ay jirto acmaal kale oo iloonay ama aad jeceshahay inaad nagu biirisid qaybta hoose ee faallada noogu dhaaf. mahadsanid.